hadda waxaa yimid dad dhahaya waxaan nahay ahlu sunna wal jamaaca waxaan nahay ashcari waxaan jecelnahay aala beydka nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana kuwa arrimo kale ee qarsoon ee ah mabda'a tashayuca waxaan marka uga digaynaa waalidiinta iyo maaragta muslimiinta oo culimada fariin dheer iyo cod uga codsana uguna diraynaa ka wasaaradaha dadka aalu beydka ku gambanaya jacaylkiisa ee shiicada ah hadda waa ay yimideen magaalada gaalkacyo markaas weynay ka furteen Soomaali galbeed oo dhan bay soo galeen Nairobi ay soo gaareen xamar ay soo gaareen walaalayaal halaga digtoonaado waxay ku gambanayaan jacaylka nabiga ka aalu beydka waxay leeyihiin waxaan nahay dadka nabiga u gargaaraya aalkiisa laakiin calaamaday leeyihiin horta aalu beydkay aad ugu celcelinayaan way fiican yihiin ku celcelishaan haday runka sheegayaan laakiin waxa ka hooseeya oo ku garan kartaan ayda saxaabada qaar kamida ayda saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam misla muawiya amiirul mu'miniin muawiya sidaas oo kale umar oo kale sida yaani sayyid bakar oo kale aisha oo kale waliba saxaabada yaani markii qitaalu safay sayyid ali la jirto dhan sayyid ali ka jirtay oo dhanka muawiya yaani arkayda inuu musiib yahay oo dhan ay waxay leeyihiin maaragtay ay wax ka sheegayaan oo qaarkood diinka ay ka saarayaan waxaan marka rabnaa inaan jacaylka nabiga qaadano calayhi salaatu wasalaam inaan ka aalu beyd ka qaadano saan awalba ahaynay inaan laba laabno caawo kaleeto waa in saliga nabiga la badiyo waa in gelinka dambe ee 10 saac iyo maaragtay ilaa subaxiga aagaas ee nabigu saacadihii uu dhashay ayna soo marayaan qof waliba ah dareen gooniyo uu ku qaabilo waxaan rabaa inaan ku soo gunaanada kelimadaydoon mar kale ku celiyo nagula farxa dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam nala weyneeyay nabiga aad liibaantaada waxaan aad ugu malaynayaa kitaab oo waxaa jira la qoray oo nin aan muslim ahayn oo qoray ee uu yiri boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan uu ku qoray kow wuxuu ka dhigay nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam a'zamu al-insani marra fi at-taariikh nabiyul islam muhammad bin abdullah يعني نبي إسلام كوهاي وقفك تاريخ الصومر قفك إنسان كيجوينه ونبي محمد عليه الصلاة والسلام بقول كقف وبهرية وحن رجينا يا مرك إن قفك ننكاس أو عن مسلم هايني وحى أو قرتي أي سنجروين ضد بدن أهل التوحيد وحن أركينا ضد أهل التوحيد أو يعني عن إن فرحان إسكدا لبصنايا دلشة النبي عليه الصلاة والسلام يبيش مولد waxaan leenahay cilmiyada idin geynaysa dib wax u akhriyo oo wax korsada waxaan ilaahay u weydiinaynaa inay soo hanuunaan waxaan leenahay kaliidanina gaalka nabiga fadligiisa qiray calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay hadaad ku qanacsanaynina ka adabsada nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dambeyn waxaan idin leeyahay hanbali yafrahu macna bi wilaayati muhammad sallallahu alayhi wasallam wa mahsantihi jasaakumullah assalamu alaykum